Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkan waa Kuriye Media Center. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa cuntooyinka u wanaagsan muuqaalka qofka bini'aadanka. Waxaa jira cuntooyin kala duwan oo la xaqiijiyay inay muuqaalka ama maqaarka qofka ay u wanaagsan yihiin. Waxay isugu jiraan khudaarta, fruitiska iyo looska noocyadiisa kala duwan. Muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar kanaalkeena, taabana calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela muuqaalada aynu halkan soo gelino. Cuntooyinka la rabo inaad si joogto ah u cunto waxaa qayb ka ah yaanyada, gaar ahaan nooca cagaaran oo jirka ka ilaalinaysa inay qoraxdu wax u dhinto, waxayna u roon tahay dadka ay wejigooda qoraxdu gubto. Bocorku waxaa la sheegay inuu ka mid yahay cuntooyinka maqaarka sifeeya, gaar ahaan haddii sida cabitaanka loo shiido. Wejigana waa la marsan karaa, wuxuuna bixiyaa wasakhda. Bataati macaan ama bataatiga gaduudan waxa uu ka hortagaa kadkadoodka ku yimaada maqaarka qofka. Sidoo kale waxaa qayb ka ah looska guud ahaan waxaa ku jirta saliid, waxayna maqaarka ka dhigaysaa inuu noqdo muuqaalkiisa mid ifaya oo ay indhuhu qabtaan. Ukunta waxaa ku jirta borotiinis u roon xoojinta difaaca haragga. Sidoo kale waxaa kaloo qayb ka ah cabidda biyaha. Biyaha waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maqaarka u baahan yahay, wuuna jilciyaa, wuxuuna ka ilaaliyaa jeexjeexa iyo qallaylka ku yimaada jirka bini'aadamka.